waxay ahayd duhur dabadii maalin khamiisa taariikhduna waxay ku beegnayd 14 bishii August ee sanadii 2003 jawigu guud ahaan wuxuu ahaa mid aad u kulul dhinaca waqooyi galbeed ee deegaanada ay ku yaalaan magaalooyinka New York ee xariga Mareykanka iyo magaalada Toronto ee dalka Canada dadkuna waxay isku diyaarinayeen labada cisho wiiga dhamaadkiisa ee aala laga nasto shaqooyinka ma jirin qof ogaa ama saadaalin karayay waxa dhici doona Doors shut quickly at City Hall. Nobody was allowed in because the metal detector... Massive power blackout hit the United States and Canadian cities, closing nuclear power plants. 100 power plants shut down and 50 million people in two countries. nolosha 15 milyan oo qof ayaa mar kaliya sakana gudahood isku bedeshay waxaan la filayn waxa mar kaliya go'ay laynankii telefoonada biyaha iyo laydharka oo dhan kumanaan kun oo qof ayaa ku go'doomay liftiyada guryaha iyo marinada dhulka hoostooda xaddiga khasaaraha ka dhashayna waxa uu gaadhay 6 bilyan oo dollar lamaha dawladda ee arintaasi khuseysay markii hore waxay sheegeen inay arintani ka dhalatay dhirdhaadheer oo waxyeello u geysatay xarkaha dabka qaada laakiin xaqiiqda dhabtii waxay ahayd mid intaas ka fog 3 cisho ka hor dhacdadan oo ku beegnayd 12 bishii August ayaa qof aan la garanayn meel aan la ogeyn ka soo diray computer virus u diyaariyay oo ha fayrasyada adduunyada soo maray midkii ugu khasaaraha badnaa fayraskaas oo lagu magacaabay Blaster sida khubaro badan oo internetka isku raaceenna waxa uu ahaa weerar ka dhana internetka kii ugu weynaa ee shabakada internetka soo mara Mike oo ah mid kamid ah khubarada ku talax tagay la dagaalanka iyo hogaarsiga fayrasyada kombiyuutarada kana shaqeeya lab weyn oo fayrasyada lagu baaro oo la yiraahdo F-Secure oo ku yaala dalka Finland ayaa ahaa isaga iyo tiimkiisu dadkii ugu horeeyay ee ka war hela amaba ogaada fayraskan Blaster markii ugu horeeyay ee internetka soo galay nooca fayraskan oo ahaa mid khalkhal badan geliyay in badan oo kamid ah dadweynaha waxa ugu horeyn hilfaha u qaaday database-ka diyaaradda Air Canada ay ku jireen macluumaadka rakaabka diyaaradda raacay after a virus overwhelmed some of the airline's computer networks taasoo keentay in rakaabka ay ku tuulmaan airportada waxbana kala socon waayaan waxa kale oo dhammaan jiray khadadkii tareenada ee 23 gobol sida caadiga fayrasyadu waxay isku dhex qariyaan programmada kale internetka isla markaasna waxa uu kombiyuutarkaada ku soo gaari karaa isagoo la socda email lagu soo diray inta badanna uma gudbo kombiyuutarkaada ilaa qof u furay emailkaas amaba kali garay attachment la socda emailka laakiin fayraskan Blaster waxa uu ahaa nooc ka duwan nooca aan soo sheegnay oo la yiraahdo worm nooca fayraskani uma baahna program kale oo qaada amaba xambaara isaga laftigiisa ayaa isfaafiya isagoo gudbaya khadka internetka si kale hadaan u sheegnana Blaster waxa uu kombiyuutarkaaga ku soo gaari karayay inuu khadka internetka ku xiriirsan yahay oo kaliya meelaha uu sida gaarka ah khatarta weyn ugu hayayna waxa kamid ahaa bangiyada waaweyn xarumaha biyaha laga kantaroolo warshadaha waaweyn ee laydharka iyo diyaaradaha adduunka isaga goosha maadaama kombiyuutaradoodu yihiin kuwa markasta loo baahan yahay inay shidnaadaan inta la og yahayna meelaha ugu waaweyn ee uu gaadhay waxa kamid ahaa xarunta nuclearka ee Ohio ee ku taalla wadanka Mareykanka inta wixii ka dambeeyayna khubaro badan oo ah ilaalada internetka waxay isku raaceen inay maalin u dhici karto weerar lagu soo qaaday internetka kaasoo burburin kara ama baabiin kara dhammaan hab socodka nolosha bini'aadanka khasaare badanna geysan kara maadaama ay maanta adduunka intiisa badan waxyaabihii nolosha asaasiga ah yihiin kuwa internetka ku xiriirsan fayrasyada sida Blaster oo kale waxay ka yimaadaan ama sameeya qolooyinka jabsada kombiyuutarada ee loo yaqaan hackerska haddaba hackersku waxay u qaybsamaan 3 group oo groupka ugu horeeya la yiraahdo white hat ama koofiyada cad kuwan waa kuwa ugaarsada ama la dagaalama fayrasyada inta badanna waxa lagu tiriyaa inay yihiin dad wanaagsan nooca labaad oo la yiraahdo black hat ama koofiyada madow noocan waa kuwa khatar ku ah nolosha bini'aadanka waa kuwa sameeya fayrasyada inta badan naxada credit cardada ama geysta weerarada internetka intooda badan kuwa ugu dambeeya ama kuwa saddexaad oo la yiraahdo grey hat ama koofiyada greyga kuwani waa kuwa ka shaqeeya labada dhinacba dhinaca wanaagsan iyo dhinaca xunba waxayna u dhaxeeyaan labada kooxood ee hore u soo sheegnay maalmahan dambana haakinku wuxuu noqday suuq aad u soo koraya waxa maanta jira buugaag badan oo aad suuqyada adduunka meel kasta ka helayso jariirado iyo kalaasiyo badan oo aad ku baran karayso sida wax loo hackereeyo ama kombiyuutarada loo jabsado weerarada iyo khasaaraha ay geysteen hackerskuna ma jiro ilaa hadda mid ka xun kii uu geystay wiil yar oo isku bixiyay Mafia Boy
tan iyo intii ay bilaabantay ganacsiyada internetka wax lagu kala iibsadaana shirkado badan oo ay ka mid yihiin Yahoo, eBay, Dell, Amazon iyo weliba qaar kale oo badani waxay maalin kasta ka sameeyaan ganacsiga internetka ay ku sameeyaan $100 milyan. muddo haatan laga joogo 16 sano oo ku beegan bishii February ee sanadii 2000 websaydyada shirkadahan aynu soo sheegnay waxay markaliya ku war heleen weerar culus oo internetka ah oo ay ku soo qaaday wiil yar oo isku bixiyay Mafia Boy oo ahaa waqtiga da'diisu 15 sano kuna jiray dugsi sare oo ku yaala magaalada Montreal ee dalka Canada. Michael oo ahaa wiilka yar ee isku bixiyay Mafia Boy markuu jiray 12 sano wuxuu ahaa mid kamid ah dadka looga dambeeyo hacking-ka ama sida kombiyuutarada loo jabsado. markuu 15 sano jirayna waxa uu ku biiray mid kamid ah gruubada ugu khatarsan ama ururada ugu khatarsan hackerska oo ka soo jeeday wadanka Russia laguna magacaabi jiray TNT Force. Mafia Boy si uu muujiyo awoodiisa iyo xirfadda uu leeyahay jabsashada kombiyuutarada waxa uu samaystay virus cusub kaasoo ah mid aan awoodiisa hore loo arag isla markaana waxa uu ku bartilmaameedsaday mid kamid ah websaydyadii ugu waaweynaa ugu suuqa badnaa ugu mashquulka badnaa walibana ugu faa'iidada badnaa adduunka waa yahoo.com. aroornimadii hore ee 7 bishii February sanadii 2000 Mafia Boy waxa uu diyaariyay weerarkiisii uu ku qaadayay Yahoo. fayraskiisana waxa uu ka dhigay mid uu ku waqtiyay saacada kadib inuu iski u hawlgalo kuna jihaysta halkii uu ugu talagalay. inta kadibna waxa uu wamba baxay iskuulkiisii uu maalinta lahaa. intii uu kalaaska ku jirayna waxa uu ahaa mid qalbigiisu ku maqan yahay tirinta minidada ka haray xilliga uu hawlgali lahaa hubkii fayraska ahaa ee uu maleegay weerarka dhanaca shirkadda Yahoo. 10 subaxnimo waxa si toos ah u bilaabmay weerarkii internetka ee laaya maanta taariikhda ku xusan inuu yahay kii abid ugu weynaa waxaana hawada si toos ah u galay fayraskii uu farsameeyay Mafia Boy isagoo ku jihaystay kombiyuutarada shirkadda Yahoo. wax ka yar daqiiqado gudahood ay shirkadaasi ku war heshay weerar aan kala go'o lahayn oo markaliya ku habsaday. nooca weerarkan oo Michael ku qaaday shirkadda Yahoo waxa la yiraahdaa denial surface attack. sida caadiga markaad website gasho ama aad furto waxaad codsi u diraysaa serverka website-kaasi leeyahay. tusaale ahaan markaad internet browser-kaaga ku qorto www.yahoo.com waxaad hal codsi u dirtay mid kamid ah serverada Yahoo ay leedahay. Denial surface attack oo ah weerarkii uu Mafia Boy ku qaaday shirkadda Yahoo waxa uu dirayaa 100 milyan oo codsi second kasta isagoo adeegsanaya kumanaan kombiyuutar oo kale oo soo afduubay dhammaantoodna ku jihaynaya website-ka Yahoo taasoo ka dhigaysa in 100 milyan oo qof ay second kasta soo booqanayaan website-kaas taasoo kombiyuutarada ku ridaysa khalkhal iyo inuu waayo awood uu kaga soo jawaabo codsiyada ugu soo jabaya sida daadka isla markaana ku qasbaysa kombiyuutarka inuu istaago ama hawada ka baxo. ilaa iyo maantadan aynu joognana ma jiro difaac fiican oo la iskaga celin karo weerarka noocan oo kale ah. markuu dhammaaday iskuulkii Mafia Boy wuxuu si degdeg ah u abaaray gurigiisii ilaan warba ugu gaajo badane si uu uga war doono halka uu ku dambeeyay weerarkii uu maleegay. laakiin waxay u filayay wax ka weyn ayay indhihiisu qabteen taasoo ahayd in ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay website-kii shirkadda weyn ee Yahoo.com gabi ahaantiisba. markii uu arkay Mafia Boy awoodda fayraska uu sameeyay waxa weerarkiisii ku sii ballaariyay website kale oo ay ka mid yihiin CNN, Amazon, eBay iyo weliba Dell.com oo dhammaantoodba ahaa websaydyada ugu mashquulka iyo faa'iidada badan adduunka. isla markiiba waxa iyagana hawada laga waayay dhammaanba websaydyadaas oo dhan. khasaaraha miisaaniyad ahaan ugu weynina waxa uu ku dhacay shirkadda warbaahinta ee CNN.com iyadoo 12 website oo kale oo ay lahaayeen dhammaantoodba iyagana laga waayay hawada markaliya. weerarka ku dhacay shirkadaha ugu waaweyn suuqyada adduunka waxa uu qabsaday dhammaan headlineskii wararka adduunka. waxa iyagana isla markiiba hoos u dhacay qiimihii ay shirkadahaasi ka taagnaayeen suuqyada dhaqaalaha adduunka. warbixintii ugu horeysay ee laga soo saaray xaddiga khasaaraha uu geystay weerarkan uu qaaday wiilka yar ee 15 jirkii waxa lagu qiyaasay $1.7 bilyan. intaa wixii ka dambeeyay waxa gacanta lagu soo dhigay wiilkii yaraa ee geystay weerarkan. waxa uu 8 bilood oo xadhiga ku soo qaatay mid kamid ah jeelasha carruurta lagu xidho ee dalka Canada. laakiin Mafia Boy waxa uu ka tagay arrin dhaxalgal noqotay iyadoo kombaniyadaasi ka barteen kana ogaadeen galdaloolooyin badan iyo daaqado badan oo furan kuwaasoo laga soo weerari karayay laakiin ay ku ogaadeen weerarkan uu ku soo qaaday wiilkan yar ee 15 jirkii. tan iyo intii ka dambeysay weerarka uu qaaday Mafia Boy waxa la ogaaday internetku inaanuba ahayn meel ammaankeedu sugan yahay. taasina waxa ay keentay in warwar badan iyo walaac badan ay ku beerto shirkadihii waaweynaa ee ka ganacsanayay. ilaa iyo inta la ogyahay fayrasyada adduunka ka soo baxa
amaba jira intooda badani waxay leeyihiin ujeeddo cad oo loo sameeyey. laakiin sanadku markuu ahaa 2007 waxaa internetka ka soo shaacbaxay nooc cusub oo virus ah kaasoo lagu magacaabo Stormworm. waxa uu ku soo weerarayaa isaga oo aan wax digniinaba ku siin ilaa iyo maantadan aan joognana lama yaqaano ujeeddo sax ah oo laga leeyahay amaba loo sameeyey. nooca viruskan oo ah mid qarsoon waa mid aanay macquul xitaa ahayn inaad ogaan karto inuu kombiyuutarkaada ku jiro iyo in kale, sababtoo ah isagoo markasta isbedbedelaya si aan loo helin, kolba sidii maska oo kalena xub siibanaya. haddiiba ay suuragal noqoto inaad hesho ama aad ogaato inuu kombiyuutarkaaga ku jiro kadibna aad istiraahdo iska nadiifi, waxa si degdeg ah kuu soo weeraraya fayraska qayb kale oo kamida oo dibadda joogta oo loogu talagalay ama dusha ka ilaalinaysa, taasoo dhammaanba hilfaha u qaadi doonta ama burburinaysa kombiyuutarkaaga wixii ku jira. laakiin sababta headlineska warbaahinta adduunka loogu soo qoray waxa weeyaan isagoo samaynaya wax la yidhaahdo zombie. zombie macnihiisu waxa uu yahay kombiyuutar laga maamulaya meel kale ama qof kale oo qarsooni uu hoggaanka u hayo ama uu hagayo. qofkii lahaa kombiyuutarkanina aanu ogeyn wax kastaana u eeg yihiin sidii caadiga ahayd. markuu doono inuu ka fushado wixii uu doono ama dan ka leeyahayna qofkan daaha dabadiisa ka maamulaya uu ka qabsanayo ama ka fushanayo wixii uu dan ka leeyahay. fayraskan waxa uu gaadhay kumanaan kombiyuutar, isla markaana waxa uu sameeyey kumanaan kun oo zombie. kadibna qofkii fayraska sameeyey waxa uu isku wada xidhay kombiyuutaradaasi oo dhan. kadibna waxaa halkaa ka samaysmay wax la yidhaahdo botnet. botnetka qofka maamulaya wuxuu awood u leeyahay inuu isticmaalo awoodda kombiyuutaradan oo dhan, sida hadduu doono inuu amar ku siiyo in kombiyuutaradan oo dhani ay mar kaliya ku jihaystaan weerarna ku qaadaan website-ka uu rabo. nooca weerarkaas oo noqonaya noocii uu Mafia Boy ku qaaday Yahoo ee la odhanayay denial service attack. khabiirada u kurgala fayrasyaduna waxay sheegeen in botnetkani ay isku xidheen ilaa in ka badan 50 milyan oo kombiyuutar, dhammaantoodna qofna aanu ogeyn halkay adduunka kala yaalaan. sida wadamada Russia oo kale waxa la iska kireeyaa botnetka. haddii aad rabto inaad website weerar ku qaadana adigoo kareysan kara saacadda ama maalinta oo dhanba. inkastoo ujeedada laga leeyahay aanay caddayn, laakiin waxa ilaa hadda la ogyahay in botnetkani ay maamulaan dad aan wanaagsanayn oo wadda gacanta ugu jirtaana ay tahay mid aad u weyn oo adduunka wax badan ku yeeli karaan. baryahan dambana waxaa sii badanaya dagaalkii siyaasiga ahaa u dhexeeyay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Russia, China, kuwa badan oo ku yaala Yurub iyo Mareykan inuu isu bedelay mid la isku ugaarsado ama la isku weeraro dhinaca internetka.